Oh yeah, I don't know his name, but I know the who most handsome man. he got kicked out of the UK Yeah. because he didn't, no US because he didn't have passport. Isn't that Saudi Arabia? Saudi Arabia. Which are I think so. the most handsome man? Okay, Saudi Arabia, I think, yeah. haddaba waxyaabaha ugu saameynta badan oo la yaabis 2026 waxaa ka mid ah in wiilkeena Soomaaliyeed Cumar Cabduqaadir Caartan uu noqday midka ugu saameynta badan ugu mataqaan haalaynta badan 2026 ee sanadkan hadda socda maadaama uu World Cup-kii 2026 hadda socday ee ka dhacay Mareykanka uu Trump soo reebay balse waxaa laga yaabaa Soomaalida maanta waxay u tahay guul aad u weyn aan marraba la soo koobi karin Trump oo islahaa Soomaalida gabi ahaanba dhulka la gal oo waxba u reebin oo maadaama uu nagu ku xumeeyay wiilkan Soomaaliyeed balse nasiib wanaag wuxuu Ilaahay qoray oo qadarta Allah waxba ka weynee maanta waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu caansan adduunka xag walbana muslim iyo gaalba intaba ay jecel yihiin haddaba Cumar Cabduqaadir Caartan ayaa noqday mid ciyaanta dhan baraha bulshada haysta haddaan anagu Soomaali labadii biri ugu horeysay uu ka soo degay cadda airport kaliya ayaan bumbuuninay oo hadal haynay aan bumbuuninay aan wadanay balse waxaa la yaabasaa Afrikaantii ayagu waxa ay sameynayaan markay garoomada ay soo galayaan waxa ay soo qaadanayaan boorkii ama boorka soo waran yahay Cumar Cabduqaadir Caartan asagoo ay soo dhaweyn u sameynayaan xusayaan waxa la yaabasaa xitaa haddii ilmayaha gararka la weydiiyo hadda waa ka video hadda arki doontaa daawanasaan ciyaalka yararka ayaa la weydiinaya ninkan ma taqaanin baa la garanaya Cumar Cabduqaadir Caartan weeye Cumar Caartan bay dhaxayaan marka war sheegaya ka soo baxay FIFA ayaa waxay sheegaysaa in garsooraheeda Cumar Caartan ay siin doonaan isagoo xitaa ciyaarta uusan hayn uusan goobjoog uusan hayn isagoo xitaa wadankiisa jooga in ay siin doonaan mushaharka ciyaarta ciyaar markii ay FIFA la qabanayo World Cup wuxuu calaal bitra qadanaya $100,000 qaar way ka baalbitra qaar way ka badataa qaar way ka yaraataa qaar dhexdhexaad weeye balse waxa la sheegaya Cumar Caartan in ay FIFA u balan qaado in mushaharkiisa ay siin doonto xitaa had soo ciyaarta uusan hayn oo Soomaali u joogo halka uu socon doona mushaharkiisa taasna waxay noqon doontaa war farxad leh waxaan xaqiijisay FIFA nasiibka ugu weyn waxa uu noqonayaa haddaan anagu nahay Soomaali qadiyada un baan weyn laakiin haddii wixii xiisa ay tahay laba biri way bis laba biri ayaa wixii la xiiseenayaa intan maskaxdii oo dhan waa ka baxaysaa wixii bayaaba hadal hayaba laakiin hadda waxa la yaabasaa Afrikaanku ayagu way bumbuuninayaan Cumar Caartan waxay leeyihiin waxa u rajeynaa nasiib wanaagsan waxa u rajeynaa guul waa la xaqiray wax walba lagu sameeyay balse qadarta Allah Ilaahay baa hayee Cumar Caartan hadda waxa uu noqonayaa mid ka mid ah ragga albitra u qabanaya ciyaartan soo socota ee finalka ee UEFA Aston Villa iyo Paris Saint-Germain wuxuu noqon doonaa albitrigii ugu horeeyay abad oo Afrikaan ah oo UEFA ka qabta mataqaana albitra waa arin aad la yaabisay oo nasiibkiisa meeshuu rajeynay meel kale Ilaahay ka siiyay ciyaartan ugu fudud insha Allah asaga ayaa loo dhiibayaa balse waxa la yaabasaa Soomaaliya hadaan anaga guul weyn been oo tahay Trump waxa uu isku dayay inuu si fiican nagu bashaalo oo mataqaanaa niyad jabiyo balse nasiib wanaag waxay noqotay mid taas aan waxba ka tarayn aanan waxba u soo gudayn FIFA ayaa ballan qaaday in mar walba ay u muusin doonaan garab istaag ayna ku darsan doonaan liiska albitrada ugu fiican ee FIFA bay u duwan gasheen waxay qaban doonaan ciyaaraha mataqaanaa El Clasico ciyaaraha waaweyn albitr go'aamiya maadaama uu noqday refereegii ugu wanaagsanaa ee ka soo baxa qaaradda Afrika balse waqtiga iyo waayaha Trump uu ciilay marka waxa la isdhihi karaa haddaan nahay Soomaali wiilkeena Soomaali aan garab istaagno aan u rajeyno nasiib wanaagsan maadaama hadda fursado badan ay soo bandhigeen caalamka ayagoo ka faa'iideysanaya haddaba laga yaabaa Soomaaliga ugu horeeyay oo milyaneer noqday ama bilyaneer noqdo Cumar Caartan waayo hadda waxa uu noqday qof magac leh qof lagu bartamayo qof walba ku barbartamo waayo shirkad walba ama
dhinac walba ku barbartamaya waayo nin saameyn weeye qof walba waxa marba ka dambeysaba waxaa soo baxaya waxyaabo warar wanaagsan oo positive ah oo asaga anfacaya taas ayaa noqonaysa nasiib oo xag ilaahay u qoray iyo dadaalkiisa uu gaaray marka asxaabta qiimaha leh dhamaantiin soo dhawaada channelkeena ku soo dhawaada Abraham Show subscribe-ta aday noqoto like-ta iyo share-ta intaba kula dadaala channelka aan isku dayno inaan gaarno soo xisaaban 200 subscribe ay maadaama ay wax yar nooga harsan tahay insha Allah waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh